kulanka guud ee golaha shacabka oo ku furmay 152 xildhibaan isla markaana uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu gooreen xildhibaanada ay cod geliyeen soo jeedinta guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka ee ahaa in la ansixiyo labada heshiis ee kala ah heshiiska quseeya ilaalinta hidaha dhaqanka iyo hidaha dabiiciga iyo heshiiska ilaalinta hidaha dhaqameedka aan la taaban karin. xildhibaanada oo cod u qaaday ayaa waxaa codka ku ogolaatay 146 xildhibaan, 3 xildhibaan ayaa diiday halka 3 kalena ay ka aamustay sida uu natiijada codeynta uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka oo kulanka shir gudoominayay. codeynta sidaan ayay u dhacday. waxaa ogol u codeeyay 146, waxaa diiday 3 cod, waxaana ka aamusay 3. sidaas ayuu talo soo jeedintii guddiga ansaxay ku tahay. waa masantii. intaasi kadib xildhibaanada golaha ayaa si amba qaaday akhrinta labaad ee ka doodista sharciga doorashooyinka qaranka oo doodiisii kulankii ka horeeyay ay soo bilaabatay. waxaan ugu horeyn ka hadlay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. waa maxay nooca doorashada oo dastuurkeena tilmaamay? waa noocee? ilaa noocyo badan baa jireen. haddaba markii aan isu geyno micnaha iyo ujeedooyinka qodobada kor ku xusan, nooca doorashada oo dastuurkeenu tilmaamay waa nidaam doorasho sugaya hirgelinta adeegsiga doorashooyinka uu leeyahay muwaadin kasta oo buuxiyey shuruudaha sharciga, inuu si toos ah, qarsoodi ah, caadil ah oo siman qofkiiba hal cod ah oo codeyn xor ah uga qayb qaato codeynta iyo doorashooyinka. waa nidaamka loo yaqaano nidaamkaas haddii oo la sugeeyey wuxuu noqonayaa nidaamka sugidda hirgelinta xaqa codeynta iyo doorashooyinka muwaadinku leeyahay, oo afka carbeed ku noqonayo tatbiiq xaqul muwaadin litaswiit walintikhaabaat. afka qalaad oo ingiriisigana ay ku sheegaan universal suffrage. marka ereygan la yidhaahdo one man one vote, oo waa halqabsi, waa slogan oo shardi ka mid ah shuruudaha ee ma aha nidaamka laftirkiisa ma aha. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ay aragtidooda ka dhiibtay sharciga doorashooyinka qaranka, iyadoona waxyaabaha aadka looga dooday ay ka mid yihiin waqtiga doorashada, nooca doorashada iyo sidoo kale qodobo kale. faqradda 3aad oo laga saaray marka laga hadlayo codbixiyayaasha in dadka ajnabiga way laga saaray, guddigu way ka saareen in dadka ajnabiga ay codeeyaan, in dadka xiskoodu dhiman yahay ay codeeyaan, in maxaabiistu ay codeeyaan, iyo in codbixiyayaashu aanay 18 jir ka yaraanin. taana in lagu soo celiyo weeye, waayo guddigu go'aan ma gaari karaan. shuruudaha qoondada haweenka waxaan qabaa in qodobkaas la siinayo jaanis xisbiyada iyo guddiga intaba. waxaan rabaa in lagu bedelo mudane gudoomiye waa in ay ilaaliyaan dhowraan shuruucda dalka u degsan. xigmadda ka dambaysa in threshold loo suubiyo meesha aniga waxay la tahay in aanan la helin qabiil ama group yar intay isku imaadaan aanan suubsan xisbi. marka si loo ilaaliyo midda aniga waxay la tahay 4 in laga daayo sideedii hore, markii hore 7% ay ahayd, in laga dhigo ama korba loo sii qaado si markaa maxaa la dhihi jiray xisbiye adag ee wadankii uu yeesho. guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ayaa xeer ku soo saaraya habraaca iyo shaxda ay raacayaan xisbiyada markay soo gudbinayaan liisaska murashaxiinta baarlamaanka si loo dhowro isku dheelitirnaanka iyo qoondada dumarka. reer 2 xildhibaan leh, reer 2 xildhibaanna la kursigooda waa geedka go'an. reer 1 xildhibaan leh, 1 xildhibaan oo ani igala yimaaday kursigiisa laguma tartabo bannaanku fadhiya. marka how about anoo 3 xildhibaan leh sidee bay ku dhacday ani inaan xaq u yeelan inaan kursi aqalka sare ku yeesho? mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka oo kulanka shir gudoominayay ayaa aad uga mahadceliyay xildhibaanada golaha shacabka ka doodista sharciga doorashooyinka qaranka oo aad muhiim u ah. waxa uu sheegay isagoo kulanka soo xiray in kulanka kan xiga dooda ay sii socon doonto. horta berrit waxaan idinla socodsiinaynaa kulanaa jira halkan, xildhibaanada waa inay soo xaadiraan kulanka xiga oo aan kaga doodayno doodan aan sii wadayno waa maalinta Isniinta haddii alla idmo. aad iyo aad u mahadsantiin. kulanka anagu waa noo xiran maanta. Ibraahim Gudle Isxaaq, raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed, xarunta golaha shacabka, Muqdisho.